dhalinyartii wax baratay baa jaamacadii soo wada qalin jabisay dadku aad bay imika wax u barteen iyo tuulooyinkii 10 noola joogta oo xildhibaanadii oo shaqana si xagan kale meel la geeyada haya waanu hadalnay halkii loo shaqo geyn walaasya badan baa yimid dadkii baa aad u sii tarmaya in sanadkiiba intaasoo qof baa qalin jabinaysa jaamacadii caafimaad amba wax ka gale amba kuleeyada badan bay qalin jabinayaan dadkii waxay ka shaqeeyaan ma hayaan qolka waa la isku soo baxay awowgaygii shanaad awowgaygii lixaad sidoo aad ugu dul eegay buu kaga dhintay anna sidii un baana qolka ayaa wax ka qabsanaya war waxaan leenahay walaalahay ku soo dhawaada dhulkiin waan inagu soo dhaweynaynaa alla soo xasuusto waxa laga qabto dadkana waxa la taro waxa joognaa magaalada Gaarisa waxa maanta barbarkayga jooga xildhibaan Mooga Cabdullaahi Xasan oo kamid ah xildhibaanada degmada lagu haya isla markaasina maanta aan kula suganahay gurigiisa oo ku leeyahay magaalada Gaarisa gaar ahaan beerta xildhibaanka uu ku leeyahay gurigiisa magaalada Gaarisa aan kaga hadli doonaa arrimo xasaasi ah isla markaasina taaba doona dhinacyo fara badan taasoo ugu weyn tahay xaaladda magaalada Gaarisa anigoo xildhibaan Mooga Cabdullaahi Xasan kuna sugan degmada Gaarisa ahna xumin ka soo jeeda degmada lagu haya deegaanada ugu badan Suli Karuure Garbadadar Sheeddeer Kucadda ayaan ka soo jeedaa waxaan maanta halkan kaga hadlayaa ummatul maxamedka wixii ashahaata islaama deegaanadani aan joogno soo jeedo waa deegaano aad u ballaaran waa deegaano fac weyn dadka population-ka ee ku noolina waa dad aad u badan weeye Gaarisa oo kale waxa ku nool dadkaasi danyar buu badan yahay boqolkiiba 95 danyar buu badan yahay waxaan dhanbaan halkan uga diraya hay'adaha dawliga iyo dawladda iyo ganacsatada iyo inta muxsiniinta ah ilaahay dartii wax ula baxaysa waqtiyadii khayrka lahaa ana xildhibaankii ka soo jeeday amba wakiilkii ka soo jeeday deegaanadan Gaarisa iyo intii ku hareeraysan oo dhan waxaan leeyahay dadkaasi ay u soo jeestaan dhulkooga ha u soo jeestaan wixii magac sheegta amba qurba joog ka noqdo amba qolqol joog ka noqdo dadka danyarta ah ee aan waxba ahayn ee sadaqadu ay ku baxayso in la soo xasuusto ee deegaanadan ka tirsan dadku waa dad kolka hore xoolo dhaqatu ahaan jiray xoolihii way goobaabsiyeen amba way ka dhamaadeen tuulooyinka aad loo soo degay kolka ay sidaa tahay dadkii wixii la cunayay quutal daruurigii baa halis ku noqday waxaan haddaba fariin halkan uga dirayaa meel kastoo ay caalamka ku joogaan inta magacooga leh iyo inta dhiigooga leh iyo inta ay qusayso oo dhan inay walaalka wixii ay ilaahay dartii ula baxayaan nimcada ilaahay siiyay ee iyaga saa'id ku ah inay walaalahooga deegaanada ay kaga tageen amba Jabuuti ha joogaan amba Qurbaa ha joogaan amba Soomaaliland ha joogaan halkay dooniba ha joogaan waxaan aad iyo aad dhanbaalkan ugu dirayaa walaalaha ka shaqo tagay deegaanadan amba ku dhashay amba ka soo jeeday ilaahay wax siiyay bugcadaha Gaarisa Usuli Karuure Garbadadar dhammaan sekteerkaas oo dhan inay dadkooga soo xasuustaan kuna bixiyaan wixii waajib ku ah hadday maalgelin tahay hadday mashruuc iyo u samaysi tahay haddii wax ay saboolka kaga baxaan ay tahayba iyo haddii wax dan guud ah oo loo qabto oo sida aad baan ugu mahadnaqaynaa ururo badan oo wax noo qabtay way jiraan oo SOS kamida association baa kamida ururo badan oo wax badan oo danaha guud ah waxbarashada ha u sii badnaatee way jiraan niman kale oo maalqabeena ah oo xagga Djibouti jooga iyaguna way jiraan oo wax badan deegaanka la qabtay wali halkeegii ma joogto
halkaygii ma joogteen waxaan leenahay walaalka aan ku dhiiri gelinaynaa ninkaan dadka u mahadnaqin ilaahay uma mahadnaqaa la yidhi صح waan u mahadnaqaynaa ciddii wax noo qabatay dhammaan meel kasta ay joogto amba jabuuti ha joogto amba dalka gudihiisa ha joogto amba dibadba ha joogtee ciddii wax tartay ee ilaahay dartii dadka wax u tartay amba dad guud ha noqoto amba dan gaar ahaaneed ha noqote aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalka ay noo sameeyeen walaalku inay kordhiyaan dadka ay wax la qabtaan dadka danyarta wax la qabto ciddii la maalgelin karo la maalgeliyo waqtiyada khayraadku uu socdo ilaahay dartii wax loola baxayo la soo xasuusto deegaanada iyo dhulkii ay ku dhasheen dadkaasi waxaan leenahay iloobina loo soo jeesto dalkana waxaan ilaahay uga baryaynaa aan joogno inuu ilaahay nabadgelyadiisa nabad baan ku jirnaa inuu nabadgelyadiisa noo adkeeyo khayr badan baan ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah dadku kolka hore xooluhu lahaan jiray xoolihii hay'ado tiri la yiraahdo yaa naga soo dhex galay dadku iyagoo xooluhu ka soo maranayaan bay hay'adahaas yimaadeen hay'adii kolkay yimaadeenna waa lagu lugay wixiina kolkay dhowr sano ay siisay ee tuulooyinkii la soo wada degay buqcadihii ay soo wada guureen dhulkii tuulooyinka la soo wada degay yey hay'adihiina wixii iska goostay waa mushkiladda ugu weyn ee deegaanada gaarsiiyo mushkiladda ugu weyn ee deegaanadan haysi waa taa ay hay'adaabana lugoysay lacag bay dadku u qoreen lacag badan bay u qoreen raashino badan bay siiyeen waqtigii kadibna way ka hoos baxeen kolkay dadkuna xoolahoogii iskaga ciyaareen ay tuulooyinka soo degeen wixiina laga hoos qaaday rasadii sidaaba haddii la isku soo eego gidaaradii loo wada fadhiistay mashruucyo beero ahoo loo kala lihi ma jiraan shaqo kale oo xafiisyo oo laga shaqeeyey ma jiraan gidaarada meheradaha unbaa la iska soo eegaa subaxii arrintaabaa arrinta ugu weynayna in heshay markay dayaceen hay'adaha baan yaa noo sabab ah kolkay dadku lacagii hay'adaha iyo raashimadii hay'adaha ay heleen iyay waxoogi dayaceen sii daayeen xoolihii wax raaco xayawaanka celiya la waay dee wax eegta xooluhu dhaqaale u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin geedi loo raray u baahan yihiin kolba halkii dogle daruurta ku daaday u baahan yihiin dadkii waxay ka tagi kari waayeen hay'adii waxay tiri qofkii xagga uga kacay tuulada geerkeyga amba magaalada agteeda raashinkii uu go'aya suul baa la dhigayaa bay tiri waxbaa la saxeexayaa bay tiri si dadkii ay tuulooyinka u soo degaan falankeygii baa la galay waana dagaal arrintaas dagaal dadka ku socda oona la isku ogeyn weeyaan haddana way ka hoos baxeen waxba ma hayaan dadkii hadday dhalinyar tahay hadday odaya tahay hadday gebi waa la iswada eegayaa dee arsaaq ilaahay unbaa lagu nooliyaa arsaaq kale laguma noola xafiisyo laga shaqeeyey iyo dhul loo shaqo tagina ma jiraan kolka deegaanadu talay u baahan yihiin dadkii ka soo jeeday meel kasta ay joogaan iyo dadkii u ilbaxay iyo dadkii wax u bartay hadday fikir noqotana dadka ha u soo celiyaan hadday maal noqotana ha u soo celiyaan hadday dan kale noqotana dadka ha u soo celiyaan waayo dadka ilaahay baa isku eeganaya kolka dadka dhulkani wuxuu u baahan yahay fikir ururada xagga Djibouti nagaga imanaya aad baan iyaga u hambalyeynaa ititaalkooga way socdaan ururadaasi niman madaxa oo danaha aad uga shaqeeyna way jiraan laakiin wali way ku yar yihiin inay beeraan baa loo baahan yahay beeraan qof iyo laba iyo saddex waxba ma qaban karaan waxaa loo baahan yahay in la kordhiyo si dadka danahooga wax badan looga kala qaban karo dhalinyartii wax baratay baa jaamacadii soo wada qalin jabisay dadku aad bay imika wax u barteen yaa tuulooyinkii 10 noola joogta oo xildhibaanadii oo shaqana si xagan kale meel la geeyada haya waanu hadalnay halkii loo shaqo geyn culeysyo badan baa yimid dadkii baa aad u sii tarmaya in sanadkiiba intaasoo qof baa qalin jabinaysa jaamacadii caafimaad amba wax ka gale amba kuleeyado badan bay qalin jabinayaan dadkii waxay ka shaqeeyaan ma hayaan kolka waa la isku soo baxay kolka waxaan u baahannahay shaqo abuur baan u baahannahay dhulkayaga iyo nimcadayada ilaahayna dhigay iyaan u baahannahay wax taladeedii intii u ilbaxday meel kastay joogto inay nagala qayb gasho oo waxuuna nagaga taro dalka ha noqoto amba dibadda ha noqoto amba Djibouti ha noqoto aad baan u soo daweynaynaa dadkii waliba ku dhashay dhulkan ay ka tagay
waxaan lu leeyahay oo daldaana siinaya haddaan ahay wakiilada ka soo jeeda wakiil ka mid ah deegaanadan degmada lagu haya war dhulkiinii hal loo soo noqdo dhulka ayaan laga aqla gelin inaguna wax ka qabsada dadkiina wax uga qabta waayo waxa jiil aan jiil waa laga dhimanayaan wuxuu saa loo joogo jiil aan jiil awowgaygii shanaad awowgaygii lixaad sidoo aad ugu dul eegay buu kaga dhintay anna sidii un baana kolka ayaa wax ka qabsanay war waxaan leenahay walaalahay ku soo dhawaada dhulkiina waan inagu soo dhaweynaynaa alla soo xasuusto waxa laga qabto dadkana waxa la taro hadalkaana inuu ilaahay labeen geliyo iyaan xagga ilaahay ka rajaynayna waa ilaahay labeen kala hadalka geliyo oo walaalku ku baraarugo waa baraarujin waxaan wadno annaga waxba ma qaban karayno bas inaan hadalno iyaan xaq u leenahay dadka inaan u hadalno maadaama aan u joogno meesha dadka wakiilan ka nahayna doorteen inaan xaqii ay wax ka soo baxayaanba amba qurba joog han noqoto amba qolqol joog han noqoto amba dawlad han noqoto amba hay'adaha madax bannaan han noqoto amba kuwa dalka ku jira han noqoto inaan dadka u hadalno oo halkay dan uga imanayso waliba danta guud tagaar ahaaneed maahin waliba danta guud inaan dadka ugu hadalno ninkii taal xun wax kale hadii loo qaban waayo la ciidsiyo iyo muxsiniintu ragga maalqabeennada ragga waxay ganacsatada meel kasta ay joogto hay'adaha wixii mucaawinad dadka lagu qaban karayo in lala qabtayaan jecel lahay baahidana waliba laga saaro oo sidee lagaga saaraya iyagoo wax soo saar loo sameeyo iyay ku yaraanaysaa baahidu dadkuna aad buu u tarmayaa oo aad buu u sii badanaya waqtiga ka dambeeya